taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sariigas Ibraahim Sheekh Muxudiin ayaa kulan muhiim ah la yeeshay madaxa xafiiska gaashaandhigga safaaradda Jamhuuriyadda Carabta ee Masar taliye guud Axmed Fatxi Cabdusataar iyagoo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga amniga ee labada dal. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo sii horumarin lahaa xiriirka difaaca ee Soomaaliya iyo Masar, gaar ahaan dhinacyada tababarada ciidamada, taageerada howlgalka Midowga Afrika ee taageerada xasilinta Soomaaliya, iyo qorshayaasha lagu kobcinayo awoodda iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la sii xoojiyo xiriirka taariikhiga ah iyo iskaashiga istiraatiijiga ah ee u dhexeeya Muqdisho iyo Qaahira, isaga oo xusay doorka muuqda ee dowladda Masar ay ku leedahay taageerada hay'adaha amniga iyo dib u dhiska ciidamada Soomaaliyeed. Sariigas Ibraahim Sheekh Muxudiin ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya mudnaan gaar ah siinayso iskaashiga dhinaca difaaca ee ay leedahay Masar si loo helo ciidan qaran oo awood u leh, casri ah, isla markaana si buuxda ula wareegi kara mas'uuliyadda amniga dalka. Dhankiisa, madaxa xafiiska gaashaandhigga safaaradda Masar ee Soomaaliya Sariye Guute Axmed Cabdusataar ayaa dib u xaqiijiyay sida ay dowladda Masar ay go'an tahay sii wadista taageerada ay siiso Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga, xasiloonida, tababarada ciidamada iyo dhismaha awoodda ee hay'adaha difaaca. Masar ayaa ka mid ah dalalka sida dhow ula shaqeynaya Soomaaliya, waxaana labada dal ay xoojinayaan sugidda amniga iyo iskaashiga. Soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu xoojinayo dhisidda ciidan qaran oo awood u leh iskaashiga amniga dalka.